cudurrada nafta aadamaha ku dhaca iyo suluuqiisa kuwa ugu khatarsan waxaa ka mid ah cudurka la yidhaahdo wahsiga in adigoo xoog iyo awoodii leh aad waxba qabsan karin aad waxba xaqiijin karin aqoontii baad leedahay laakiin aqoontaadu midho iyo wax soo saar ma leh xooggii iyo muruqii baad leedahay laakiin wax soo saar ma leh waad wahsanaysaa nashaadkii iyo firfircoonidii baa kaa maqan waa cudur weyn cudurkaas dadka oo dhan buu haystaa ninba inuu dhan yahay ninba inbuu u joogaa laakiin dadka waa wada haystaa dadka qaarkood waxaad arkaysaa dhinac uu u jeedsado iyo hawl uu qaabilo oo uu wax ka keeno ma jirto quraan xifdi buu bilaabayaa markuu wax yar qabto waa ka istaagayaa kadib ma hawshii oo dhan baa istaajinaya cilmi dalabkiisuu bilaabayaa dhowr majlis markuu fadhiisto waa dhaqaaqaya adduunyo iyo shaqiya xamaal buu gelayaa adkaysi male waa soo cararaya waxbarashuu gelayaa meel ma gaadhsiinahaye waa ka tegahayaa kasalka noocaas iyo wahsigaasi akhiiran ruuxa wuxuu gaadhsiiyaa wax la yidhaahdo inuu nolosha ku fashilmo tan adduunka keliya ma ahe ta aakhara xataa inuu ku fashilmo oo wixii siduu uga wahsanayo oo dib ugu riixayo waad qaban doontaa iyo isgaargaadhaysaa shaqadii kadibna naftu waxay ku qancinaysaa iyo shaytaanku maba qaban kartid iska daa farkintaada isaga jir cudurkaas waxaa sababa oo keena laba shaytaanka iyo naftaada xuntee kugu jirteen khayrka kula rabin khaasatan markuu ku saabsan yahay wahsigaagu ilaahay taacadiisa iyo wixii aakhara aad wax ku heli lahay wixii ilaahay jeclaa markaad ka wahsanayso shaki ma laha waxaa ka dambeeya shaytaan oo kugu sallidmay oo ku haysta iyo naftaada xunta oo la shaqaynaysa laakiin ilaahay fadligii tabaaraka wa tacaala alla tabaaraka wa tacaala cudur ama mid macnawi ha noqdo ama mid maadi ha noqdo cudur ma soo dejinin illa daawu u soo dejiyay sida nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh daawadaasi cudurrada loogu talagalay qaarna bini aadamka ilaahay waa u furo waa tusaa qaarna waxaa laga yaabaa inaysan muddo helin oo inan iktishaafin laakiin cudur aan daawo lahayn ilaahay ma soo dejinin tabaaraka wa tacaala wahsigu marka wuxuu leeyahay daawo leeyahay daawooyinkiisa waxaa ka mid ah asbaabta wahsiga kaa saari karta kaana dhigi karta cunsur mujtamaciisa wax soo saar leh naftiisa anfaca mujtamaciisa anfaca wax beero oo midho soo saara adduunkiisa iyo aakhiradiisaba wax qabad ah inaad noqoto waxaa kaa dhigi karaya inaad asbaabta qaadato asbaabtaana ka waxaa ka ah oy ka bilaabataa horta noloshan waa inaad leedahay hadaf iyo qaayo aad doonayso inaad xaqiijiso waa inaad taargad leedahay maxaad rabtaa inaad noloshan xaqiijiso taargad iyo hadaf iyo qaayana waxaa ugu weyn tii laynoo abuuray oo ah inaan ilaahay caabudno rabbigeen raalli gelino tabaaraka wa tacaala marka inaad nolosha qaayo leedahay ood hadaf leedahay oo meeshaad u socoto aad garanayso waxaad doonaysa inaad xaqiijiso waa inay kuu caddahay marka kadibna saad ku xaqiijin lahayd waa inaad maraaxil iyo u dejisato jidkaad u mari lahayd haddaadan hadafba lahayn dariiqa bilowgiisaad faashil tahay dariiqa bilowgiisaad faashil noloshaaduna waa nolol wahsi iyo meermeer iyo hurdo iyo dib u dhacaw qodobka labaad markay kuu caddaato waxaad u socotay meeshaad u socotay waa inaad la timaaddo go'aan dhab ah oo qalbigaaga ka soo go'ay oo aad rabto inaad ku xaqiijiso alcaziima asaadiqa
go'aan adag oo qalbigaaga ka yimid waa inuu jiro hadduusan qalbigaaguba mutaraddid yahay ousan go'aan lahayn oo daciif yahay ma samaysaa iska daa qanaaco kulliyana aadan ku haysanin ayadana waxay ka mid tahay waxyaalaha keena meeshaad u tillaabsataba inaad soo fashilanto sidaas daraaddeed waa in aad go'aan qalbigaaga rasmiya gaadho inaad shaygaa xaqiijiso bini aadamkana nebigu wuxuu ku sheegay sal alla alay wasalam sifaadkiisa waxaa ugu run badan uguna qabsan wax lagu sifeeyo waa hammaam waana xaarif hammaamku waxa weeye wuu doonitaan badan yahay intaa qalbigeennu ma istaagayo sakan ma istaagayo waxbuu doonayaa waxbaa soo gelaya waxbaa ka baxaya yacni humuum baa soo gelaysa khawaatir baa soo gelaysa go'aan buu qaadanaya waa isbeddelayaa waa in marka wax weeye aad la timaaddo go'aan adag la timaado go'aankaasi waa meesha wax ka go'aan hadduuba qalbigaagu daciif yahay iyo go'aankaagu nolosha waxba ka xaqiijin mayso iyadana waad wareersanta qodobka xigaaya saddexaad waxa weeye waa in markaad go'aan gaadho dadaal rasmiya aad la timaaddo oo dadaalkii uu u baahnaa waxaad u socotay iyo hadafkaad rabtay inaad xaqiijiso dadaalkiisii waa in lagaa helo inta tabartaada inaadan ishakranin inta awooddaada waa inaad bixiso haddaad se ishakrato ood camalkii iyo shaqadii loo baahnaaba qaban weydo oo aad barkinta dheeraysato waxba ma xaqiijin kartid sidaas daraaddeed baa allah tabaaraka wa tacaala labadaa arrimoodba hal aayad buu ku sheego wuxuu yidhi waman araada alaakhira wasaca laha sacyaha wahuwa mu'min faulaa'ika kana sacyuhum mashkuura ruuxii aakhara doonaya doonid aakhara horta waa inay kugu jirto kadibna ma doonid keliyaa kugu filan maya wasaca laha sacyaha camalkii iyo shaqadeediina waa inuu la yimaado dadaalkeedii la yimow yaa doonitaanka qalbiga iyo go'aankiisa kadib shaqadii gal adkaysi u yeelo ilaahay sunnadiisa weeye tabaaraka wa tacaala qodobka xigaaye waxa weeye dadaalkaa markaad la timaado keligii kuguma filee rabbigaa kaalmayso awooddeennu waa iska xadidan tahay kownkanna ilaahay baa gacanta ku haya wuxuu bixiyey unbaa baxa wuxuu diidayna waa diiday isagu hadduusan kuu kaalmayninna waxba ma xaqiijin karti kaydadka jannada wuxuu nebigu ku tilmaamay sal alla alay wasalam kelimada ah laa xawla walaa quwata ila billah awoodi ma jirto xeeladina ma jirto ilaa ta alla mooye tabaaraka wa tacaala adiga awooddaadiiyo xeeladaaduna waxba ku tari mayso in ilaahay kuu kaalmeeyo mooye juhdigaaga iyo dadaalkaaga haddaadan kaalmo rabbi kaashanin oo rabbi kuu kaalmaynin midho ma dhalayo saas daraaddeed baa rabbi qur-aanka wuxuu inagu baray hal aayad ah baa waxaa laynagu baray ujeeddadaan u nool lahay iyo ujeeddadaa jidkaan u mari lahay iyo wasiiladaan ku xaqiijin lahay ujeeddadaan u nool lahay maxay tahay iyaaka nacbudu waay allow keligaa baan ku caabudaynaa waa ujeeddadii laynoo abuuray wasiilada iyo jidkaan u maraynana muxuu yahan ku xaqiijinayna wa iyaaka nastaciin adaan kaalmo ku weydiisanaynaa ya maba xaqiijin karna haddaadan noo kaalmayn asbaabtaa waxaa ka mid ah in haddii intaad dadaasho aad ku fashilanto waxaad rabtay waad gaadhi weyd derbi baa kaa horyimid ha isdhiibin ha niyo jabin gadaal ha u guranin isku day haddana jidka ka wareeg dhanka kale ka soo gal ha barin naftaada wax la yidhahdo dacfiga ha barin naftaada wax la yidhahdo isdhiibidda ha barin naftaada inay gadaal u gurato meesha aad gaadhay horay uga soco derbiga kaa hor yimid isku day inaad jabiso ood ka gudubto haddaad jidkeeda heli kartana soo wareeg laakiin dib ha u guranin lanna man lajja walaj haddaad albaabka ku madax adayto waad ungeli marka dambe laakiin haddaad daciif noqoto xogaa yar markuu kaa hor yimaadaba haddii u cararto xogaa markay kugu adkaataba aad tiraahdo war meeshan lama geli karo adeer wax weeyaan dadkii adduunkan iyo aakhiratooda wax ka xaqiijin lahaa mati waxaa ka mid a asbaabta in aad la saaxiibtood la noolaatood mujtamaca ka doorato dadka
hamiga sare leh dadka cazimada adag leh dadka muntijiinta wax soo saaree wax xaqiijiya ee aadan la noolaanin oo la saaxiibin dadka wahsada kuwa dariiqyada taagtaagan oo waqtigooda meelaha taagtaagnida ku lumiya oo sheekaysiga maqaayad iyo fadhi ku dirirka ku lumiya oo mar uu jiifo iyo mar uu qaad cunahayo iyo mar uu sarqaansan yahay ay tahay dee kuwa haddaad la saaxiibto nolosha waxba kama qaban kartid adeer iyagoo kale unbaad noqon man jaalasa jaalas darisku wuxuu ku siiyaa wuxuu yahay saaxiibkuna wuxuu ku siiyaa waxa uu isagu watuu ku siiyaa sidaas daraaddeed dadka liita ee hooseeya alla saaxiibi xataa haddaad daciif tahay dadka wanaagsanee sare markaad la saaxiibto kor baad u kacaysaa ayagaad gaadhaysaa waxoodii bay wax kaa siinayaan waad ku dayanaysaa waa ka nabigeenu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxu cidda uu la socdee saaxiibka la yahay ayuu diintiisa iyo dhaqankiisa leeyahay ee ka fiirsada ciddaad la saaxiibaysaa marka ka fiirso yaad la socotaa dadka nolosha ka dhacay oo daatay haddaad la socoto dadka yacni jaraa'imta galhaya ee mufsidiinta haddaad la socoto sidoodoo kale unbaad natiijada ku dambayn doonta sidoodoo kale unbaad ku dambayn sidaas daraaddeed dadka hamigoodu sarreeya wax xaqiijinaya cazimada leh ee kasalka iyo wahsigu aan lahayn ama uu ku yidhi waa la saaxiib wax badan baa iska kaa bedeli asbaabta waxaa ka mid ah inaad ilaahay barido tabaaraka wa tacaala inaad ilaahay magan gasho laba arrimood baad ka magan gasho wahsiga waxa keena oo shaytaan iyo naftaada ah aad badiso inaad ilaahay ka magan gasho وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إلهي ما قال كعر نبي قالنا صلوات ربي وسلام عليه دعادي سوحا كم ذهيت إنه ليه شري مركو ربي أسمادي سكبر يكذب أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطاني وشرك الله وحان ما قال كأجاهي شيطان كشرتيس إيه النفط إذا الشرك هذا نفط الشرك هذا لما ينبان كأجاهي هي الشيطان كدبن كيس أما الشرك كيس ما قالوا إلهي كعار دعادي سيو حاكم إذا النبي قال صلوات ربي وسلام عليه راد كلا وضع كبا شيء دالك أي كجود دال أيان إن وناك كاربا أيا وحكم لنا يوهسجا كبا لنا مرنا أيجي بإله لجمع جنجليا مرنا أثر كي كبا شيء وهسجا بإله لجمع جنجليا مركز النبي قال صلى الله عليه وسلم دعادي سيو حاكم إذا اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل إله وحن ما كان كاجاهي عاجزد يوهسي عجزكم عوي لو ذا كلمة ويكلت بدلين عجزك وحل إلى هذا إن تكري ويدبا خير كي يوناكي أود بأمهيس طبر أمهيس تعجزي بالله كسل كان محل إلى هذا وكري كرتا أود ذي والله لكن ما قبنيس حب بدنا وقونت كتير وعقلك كتير وكرتنا كتير لكن مع ذلك ويل فورره ما توسنكر حول ما قبل كتير كاس لو حل إلى هذا وهسي بالله وكسل لبضب النبي إلهي وكم من قلت صلوات ربي وسلم عليه marka ilaahayna aan laga gasho waxa ugu dambeeyay hadaad rabto inaad wahsiga ka baxdo habeenka qayb kamid ah toos oo ilaahay dhikrigiisa iyo taacada ku qaado waxa nabigeena ka sallallahu alayhi wasallam inuu yiri midkiin habeenkii markuu seexdo shaytaanku saddex guntimood buu qadaadka kaga guntayaa saddexda guntimood mid walba waxa ku shaabadaysan oo ku garaacan habeen dheer baa jire iska seexo war habeenkii waa wali waagiina ma dhawaa hurud seexo buu ku dhufanay wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ruuxi ma tuu soo kaco intuu naftiisa la dagaalamo canaanto soo kaco oo ilaahay xuso ilaan marka hurdada laga soo kacba adkaar baa jirta ilaahay lagu xuso markuu saa u soo kacayba ilaahay buu xusay saddexdii guntimood mid kamid ah furmaysa waa ka soo kacay waa weysaystay guntintii labaad baa furmaysa waa soo kacay oo wuu tukaday guntintii saddexaad baa furmaysa wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam markaasuu waagu u baryayaa
asagoo firfircooni iyo nashaad leh wax qabasho doonaya naftiisuna aad u faraxsanta farax iyo firfircooni isagoo ku jirto buu waagu u bariyaya markaasuu leeyahay warsaaka talo waxaad ku dhaqaajisay ma waxbaa kaa hor imaan karay yani hamiga ku jira xoogga ku jira waa faraxsan nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam hadduu sidaa yeeli waayo oo waagu u bariyo siduu u hurday sida baktigii sariirta u saarnaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam markaa waagu wuxuu u bariyayaa asagoo oo naftiisuna liito oo murugsan oo hami iyo murugi saaran tahay ta kalena wahsanaya oo isqaadi karin sidaas daradeed daarto inaad wahsiga ka baxdo oo wax qabatood wax xaqiijiso habeenka qayb kamida ilaahay dhikrigiisa iyo taacada ku qaado daawooyinka ugu fiican